magaalada Barsa ee dalka Turkiga ayay ka dhaanteynayaan iyaga oo soo bandhigaya dhaqamada Soomaalida ee soo jireenka ah. Ambassador Jaamac Cabdulaahi oo ah u qaabilsanaha arrimaha Turkiga ee dowladda Soomaaliya, arday Soomaaliyeed, ciyaaryahano Soomaali ah iyo maamulka magaalada Barsa ee dalka Turkiga ayaa qayb ka ah bandhigan. Somali Öğrenci Birliği olarak takribi bundan bir ay evvel başladığımız ve organize ettiğimiz bir çalışmanın içerisinde olduk. 7. ayın bildiğim kadarıyla 13'ünde başlayan bu turnuva munaasabadan waxaa ku lamaaneed abaalmarino la guddoonsiinayay kooxo Soomaali ah oo ka qayb galay tartan kubadda cagta oo ka dhacay Barsa. Programyo aan ardayda isugu keenayno oo midka ugu dambeeyay maanta ujeedkiisa uu ahaa inaan soo xirno barnaamij tartan kubadda cagta ah oo aan u qabanay ilaa iyo 6 kooxood oo ka kala socday degmooyinka magaaladan. Safaaradda Soomaaliya ee Turkiga ugu horeeya safiirkeena oo runtii markii ugu horeysay u gudbiyay barnaamijkeena inaan qabanayna tartankan runtii si aan filanaynin uga soo jawaabay waliba saacad gudaheeda ah in runtii markii aan ku niriba waxaan rabnaa inaan barnaamijkan qabanno iyadoo aan su'aal walba la weydiinaa waxay noqotay ardada reer Borsaalas iyo waxay u baahan yihiin runtii waxaan ku yiraahdaa ay adag tahay inaad ka hesho qof jooga darajada safiirnimo jooga iyadoo aan ognahay dadka qaarkii inay adag tahay xitaa inaad la kulanto ama la hadasho. Ambassador Jaamac Cabdulaahi oo ah u qaabilsanaha arrimaha Turkiga ee dowladda Soomaaliya oo ka hadlayay munaasabadan ayaa dhiirigeliyay ardayda Soomaalida ee dalka Turkiga ku sugan. ardayda kubadda ku tartantay waxaan celinayaa intii guuleystay inta kale waa u mahad celinayaa. waa sanadkii labaad ee dowladda hoose Bursa ay tartanka inoo qabato. sanadkii hore anigii meeyarka koobka guddoonsiinay kooxda guuleysatay. waa mar kale waa ku faraxsanahay. gudoomiyuhu wuxuu yiri gudoomiye Maxamed Yuusuf si aan filanayn baa safiirku uga soo jawaabay. marka horta waa inaad filataan in safiirku idin soo jawaabo. ardayda Bursa kaliya uma soo jawaabnay ardayda Soomaaliyeed Turkiga wax ku barato oo dhan waajib ay noogu leeyihiin inaanu baahiyahooda ka jawaabno. in badan oo ka mid ah dadyowga Soomaalida waxaa maanta ka guuxaya tagista iyo ku noolaanshaha Turkiga maadaama dadka iyo dowladda Turkiga ay noo muujiyeen garab istaag xilli ay dunida naga sii jeedo. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City.